haddii aan nabadgelyo la helin oo dadka lagu dhiirigeliyo inay dhibaato dhacdo dhisan mayno dhaqan mayno cibaadaysan mayno yani wax adoo wax la qabsanaya xoolaynu noqonayna waxaynu nahay ummad daayad oo doonaysa inay adduun ka mid noqoto dalalkii mar inala burburay oo idinka arkaya dee dafaynu muxuu ahaa aynu wadaagi jiray muxuu qarannimada inta meelood u kala fadhiyo waa ogsoontii waa la aqoonsaday aqoonsigiisa ku taagaya waa arkaysaa haddana wax alla waxay ku qabanayaan waayo mar bay farax ka baxda innagu intaynu isku tashanaynu dhisanayno gacmaheenaynu ku dhisanayno intaynu isu nimid baynu wax taagnoynu ku nool nahay oo maanta laynagu kuharaya ciraaq iyo dalalkii dhaqaalaha ahaa yaman iyo liibiya iyo waa ogsoontii waa la dhisi keliyahay adduun weynihii oo dhan bay iskugu tegeen waa la dhisi kari laayahay iyagoo taasi ku dhacday waxaan la yidhaha dowladnimada ilaahay baa bixiya ambiyuu soo diri jiray ambiyada nebiyu ayuu soo diri jiray markay dee arrintu farax leelbaxnimadii wuxuu og yahay mooyaane cidda soo diro nebi maxamed baa ugu dambeeyey intuu ilaahay soo diraya ma jirto tu ummadi samaysatay baa loo dhaayay ilaa berigaa waa la kala dhexlaayay ilaa berigaas waa la kala dhexlaayay dowladnimadii oo rusushiisa u soo diro maxamed ugu dambeeyey maanta waxaa laynooga baahan inaynu xajisanno waxa aynu gacmahayna ku dhisanno waxa aynu isugu tagnay ee ay odayaashaa guurtidii ay kowga ka ahaayeen ragga wixii ka nool dhismaha qaranka waxaan idinku boorinayaa inaynu nabadgelyada ku faraadayno war nimanka tartamaya nooc kuway doonaan ha ahaadaan nimanka tartamaya cod bay ku leeyihiin dadkan dagaal iyo xabadu dhiibid iyo muxuu ahaye dhagaxo dhiibid kuma laha miyay ku leeyihiin dee kuma laha cod bay nagu leeyihin soo maaha war cod raartaad u diyaargarowdaa noo kaalaya walayna siin kii nasiibku u dhiibaana fuul ummaddu haydinka nabad gasho ummadda daaya oo naxdinta ka daaya ummadda daaya oo muxuu ahaye khalgelintaya naxdinta ka daaya aynu hoggaan dhaqameedkeedii maanta 24 sano iyagoo cumaamadii iyo koofiyadii ilaa kaa soo taagan yihin way hadlayaan oo maxay ka hadlayaan wallaahi haddii aan sidaa leeyihin ma inaan arki jirin dee nin hoggaan dhaqameeda oo dadka halkaa u soo joogo hanjabaa warlord iyo ina yaroo da'yar iyo waxba hanjabi jirin waxaan leeyahay ku soo noqda kaalintaad lahaydeen iyo geedka hoostiisa iyo dhaqankii ku soo noqda ummadda dejiya oo ilaaliya taasaa laydinka baahaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin